xafladda Ogaadeniya ee xalay ka qabsoontay magaalada Minneapolis maxaa ka dhacay meeshaas waxyaabo badan ayaa ka dhacay waxa ku heshiiyay celebrity Soomaaliyeed fanaaniin Soomaaliyeed dad badan ayaa meesha iskugu imaaday mas'uuliyiin abwaano sidoo kale waxa la yaab kale oo ka dhacay in meesha lagu arkay mayorka Minneapolis ninka cadaanka ahaa ee Jacob Frey ayaa meesha imaaday asaga oo waliba dhaantadii Soomaalida la qabsaday oo uu hambaliyay Ogaadeniya dad baa qabiil u haystay waa qaran Ogaadeniya uu hambaliyay bartaas ka dhaanteeyay su'aasha meesha taala waxay tahay duqa magaalada Minneapolis maxay tahay sababta uu ugu hambaliyay sababo fara badan ayaa jiro qodobeynayna qodobka koowaad horta ninkan rajo ayuu yeeshay dib u soo noolaasho maadaama wiilkii Soomaaliga ahaa ee la tartamay Umar Fatex ay endorsement-iga ama taageerada kala noqotay DFL ama xisbiga dimuqraadiga ee Minneapolis Minnesota ku matalo gobolkaas in ay kala noqdeen taageeradii ay taageerahayeen in uu u soo bixi karo ay u saadaalinayeen mayorka magaaladaas ay kala laabteen sababaha ay ogala laabteenna waxa kamid in qolooyin fara badan oo white oo cadaan oo qolooyinkan xaq jiriinta waliba ay ku eedeeyeen inuu u egyahay ninkii burcadbadeedka jilahayay ay dhahayay am the captain now ee Soomaaliga ahaa inay la xiriiriyeen ama ay dhaheen waa walaalo ama waxyaabo noocaas ay ka gudbiyeen qolooyinkaas iyo saameyn fara badan iyo waxyaabo fara badan oo laga soo gudbiyay buuq fara badan oo hareeyay maadaama doorashadii oo soo dhaweyn ay si endorse gareeyeen oo si hordhac ay u endorse gareeyeen laga yaabo dadka qaarna ay sheegahayeen in musuqmaasuq iyo waxyaabahaas ay jireen oo Soomaali ay ku buush gareysay in la endorse gareeyo ama Ilhaan Cumar iyo waxyaabo noocaas ay jirjiraan oo ay lug ku leedahay arimahaas ayaga sidaas ayaa endorsement-iga looga noqday marka endorsement-iga maalinka laga noqday ninkaas ama taageeradii xisbiga ee gobolka Minnesota ay kala noqdeen maalinka wixii ka dambeeyay wuxuu u ekaa nin soo kabanayo oo hami soo helayo ama hope intii hore uu niyad jabsanaa markii ninkaas lagu dhawaaqay xisbiga DFL-ka ee ninkaas soo xisheen markii hore buuq iyo waxaas ayaa ku furnaa laakiin xalay si aan caadi ahayn ayuu Soomaalidii oo la dabaaldegay waa koow rajo ayuuna halka ka muujiyay inuu rajo ka leeyahay inuu ku soo noqdo mar kale mar badan ugu hayay adii 20 sano wax saas lagu qiyaasaa sida ay sheegayeen laakiin hadda lafteeda uu rajo ka sii leeyahay inuu ku soo noqdo maadaama ninkaas endorsement-iga laga laabtay ninkaas Soomaaliyeed waa koow wuxuu kaga faa'iideysanayaa si uu taageero u helo Ogaadeniya maadaama Soomaalidii ay kamid yihiin oo xafladoodii maadaama uu soo caamiray oo uu la dabaaldegayo sidoo kale speech hadallada uu ka jeediyay waa ni soo qaadan doona laakiin muhiimadda waxa weeye inuu meeshii imaaday inuu dadkii farxad la qaatay in uu la dabaaldegay in uu waliba la dhaanteeyay taas waxay ku tusaysaa marka inuu codad ka rabo Soomaalida oo ay u codeeyaan uu ka rabo xisbigana maadaama aqoonsiga ama endorsement-iga ama taageeradii uu kala noqday wiilkii Soomaaliyeed in uu asaga is soo sharaxayo mar kale oo uu is soo shacbixinayo oo dadkii uu isbarahayo oo uu ka rabo codad uu ka rabo maadaama Soomaalida halka joogto boqolkiiba 90 Soomaalida Mareykanka joogto ee halkaas joogto Minnesota gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis Ogaadeniya hanolato Ogaadeniya hanolato Ogaadeniya hanolato It is a great honor to be here in particular on this night with such a great people of our city in the people of Ogaadeniya. I know that the ONLF now in the Afar 10 Iako 41st year, 41st anniversary, that this is of particular importance, and I want to make sure that you know that you are of particular importance to Minneapolis. This is an amazing place in large part because you are here. And to have the kind of resilience and strength, to have the perseverance that the people of Ogaadeniya have shown for so many generations now. You're an inspiration. You inspire all of us.
and to work towards liberation, to work towards peoplehood, and to impart that culture through the great work of the ONLF is of particular importance right here on this evening. And so I wanted to come by as mayor of this city to say how much you mean to me. Ogadenyo Harolato! sidoo kale wuxuu halkaas ka sheegay in uu rajeynayo dhawaan in ay dal madax banaan noqdaan Ogaadeniya uu dal madax banaan noqdo speechkaas uu ka jeediyay saameyn fara badan ayay yeelanaysaa kuna yeelanaysaa Ogaadeniya iyo regionkaas iyo aqoonsigiisa ayay ku yeelanaysaa maadaama uu yahay mayor Mareykan ah oo dawladda Mareykanka ka tirsan sidoo kale waxa halkaas lagu heshiisiyay ama ku heshiiyay Xuseen Owji iyo fanaanka Soomaaliyeed ee weyn ee Nimcaan Hilaac maadaama ay isku dhiiqaysteen asaga uu ku dhiiqaystay Xuseen uu aad ugu dhiiqaystay waxyaabo fara badan uu ka sheegay waxa halkaas ku heshiisiyay Ilka Case sidoo kale waxyaabihii dhaxmaray ayagana soo dhaafay oo munaasabadii 20 milyan oo isla dambeeyay ka fariisto wala ma la socdo ninkan sadad ka meesh qorso cilis waa inuu isku yeeray qaar kood waa xoolo doonaan oo istiriyeen waxa sugi maadeen qorag waa kaftama wala siriyada gaar kala iska laaga doo la isku yimaado xarag baa loo yahay seen munaasabada caawa dhacays ee laanteedana soo dhaqay qorto ku qano sababna waa joogdooni digacsi waa jooga shaqada lagu مادام بقول شن سومالي لو كنت هاي وغاسكي شنطة سومالي كسوق وغاسكي لو قاعدين ياتا طب يلا لك عايدة كده أنا ما يلا عايدة كده أنا كده يبان أروح هنا وأدعو Xuseen Owji madax adayg uu dhameeyay waa duco kulaha ducadee waa isla kaftamay sidoo kale waxa ka dheehan kartaan in de rag way heshiiyaan way isdagaalaan way heshiiyaan cadeynteedana waa aragtaan kulay fadlan wax fikirkaada ah oo arimahan ku aadan Ogaadeniya xafladooda siyaasadda halkaas ka dhacday sidoo kale heshiiska fanaanka Soomaaliyeed iyo Xuseen Owji Ilka Case kaftanka waxaasoo dhan wix fikirkaada commentiga noogu soo qor muuqaalka dug soo gaaro no like YouTube kana subscribe no sar waan maasantiin